halkana waxaan u fadhinaa inaanu runtii wixii aad soo jeediseen inaanu ka jawaabno wixii suuragal ah inaanu kaga jawaabno ilaahay subxaanahu wa tacaala ana halkaa ha inooga sii wado howlaheenna waxaan ku horeynayaa inkastoo aanan dadka magacyadoodii qorin inantii weydiisay caruur badan baa jirta oo ka dhacday waxbarashada oo iskuullada ku jirta waxaan ka qayb galay 2 casho oo isku dhow iska qayb galay iskuulka la dhaho iskuulkan maxadka iyo iskuulka loo yaqaano ayaan shalayna ka qayb galo isagana waxaanu qiray wixii ka dowladda hoose ahaan arday baa jirta meel aan ku habboonayn wax ku dhigata geed hoost wax ku dhigata jirta taana waxaanu runtii aan ka dowladda hoose ahaan ballan qaadana wixii karaankayaga inaanu ka geysano haddii la tahay caruur la gacan qabanayo kaamkeena jooga ay tahay wixii aanu karaankayaga marnaba shacabkayaga kama hakran doono waanu gelin doonaa haddii alla ka dhigo annagoo mar walba ku saleynaynaa awooddeena dowladda hoose ahaan qodobka labaad siirooga inantu tidhi waa la dhisayey lacagtiisana waa la hayey annagu ka dowladda hoose ahaan haddaan nahay golo deegaano cusub dee maanu ogeyn maantaad noo sheegtay jasaaka allahu alkhayr runtii waynu qorshayn doonaa haddaynu siirooyada waddooyinka inoo dhammaaday ku dari karro iyo haddaynu wax kale uga faa'iidaysan karnaba intaba waynu qorshaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo qorshihiisana waxaynu ku qorshayn doonaa miis dushii haddii alla ka dhigo mana noqon doonto sidii markii hore aad sheegtay inaad ku suuroobi weyday shaqo qaran tiimkeeda ay u suuroobi weyday inay wax qabtaan maanta insha allah biidni illaahi kariim waxaanu isku daynaa inaanu suuro gelin haddii alla ka dhigo fikirkiinii ahaa inaad wax ku soo kordhisaan degmadiina waana iskiin barbartaagayna haddii alla ka dhigo waxaad sheegay danta guud iyo danta caamka in laga shaqeeyo golaha deegaanku uu u tababaran yahay isagoo runtii halkan xildhibaan golo deegaan aanu mushahar usoo doonan iyo inuu ka helo lacag ka tabacdo usoo doonan anigu kolley waxaanu ka mid ahay xildhibaanada ugu daada yar ee deegaanka jooga runtii marka la eego waxaa la odhan jiray maalintaan halkaas ka sharaxay waxaa lagu yiri war caynaba ma adduun baad u doonanaysaa maxaad ka doonaysaa ha yeeshee igama ahayna waxay iga ahayd inaan shacabkayga wixii aan ku daayarahay ee aan kari karo inaan ku kordhiyo bay iga ahayd igama ahayn inaan adduun dhaqdo oo aan adduun ka tabcado halkan anigu kolley shakhsiyan baan ka hadlo uma iman xildhibaanada kale ay la mid yihiin baan qabaa xildhibaan halkan adduun soo doontay inaanu jirin qodobka xeradhiigta haddaan ku horeeyo xeradhiigtii qorshaha waxaa noogu jiray inaan magaalada ka saaro oo aanu meel runtii ku habboon oo nadaafadeeda la geyn karo taqalaala iyo toqoyanba ay ku dhici karto godada aan u qodno meel ku habboon aanu geyno waa qorshihii koobaad aan maalintaanu meesha nimi aanu gaadhnay uu ahaa kaana gacantaanu ku haydnaana waxaanu leenahay hala samro haddii alla ka dhigo waxaa la weydiiyey dhulka danta guud dhulkii guud ee dalka ama gobolka waxaa haysta dad shacaba gacanta ugu jira dadka qaarna ma haystaan meele ay degaan horta dadkeenu waynu ognahay oo ma sinna oo qofna waxbuu haystaa qofna wax yar buu haystaa qofna waxba ma haysto bulshadeenu waa 3 dabaqadood waa bulsho wax haysata iyo bulsho dhexdhexaad iyo bulsho levelka ugu hooseysa ku nool marka waxaan qabaa dhulkuna inuu martabada yahay mid wax haysta iyo mid yar haysta iyo mid aan waxba haysan inay bulshadu u qaybsan tahay taana waxa runtii ilaahay dhulkeena uma ciyiriin ee waxaa jira dhul badan oo deynoo bannaan oo aan laakiin ku habboonay inaynu degno waxaanan qabaa in dee insha allah biidni illaahi magaaladeenu ay korayso oo daafa u kala kortay maanta ay kilomitir 1 kilomitir in ka badan ay magaaladeenu isu jirto ayaan qabaa inaan insha allah biidni illaahi dhulka inoo bannaan ka faa'iideysan doono isagoo wali qiimaha dhulkeenu aad u jaban yahay waxaan dhiirigelinayaa qof kastaaba inuu heli karo marka loo qaybiyo dhulkeena dadka ku nool loo eego in qof waliba dhulku habboon u heli doono haddii alla ka dhigo haddaynu usii samiro magaaladeena inaanu dhisano oo runtii dee birceeda kor u qaadno waa waajib ina saaran hiliblaha qolada hilibluhu way cabatay waanu ognahay cabashadooda ma moogelin cabashadooda hilibluhu runtii waa lafdhabarta inay ka mid yihiin dhaqaalaha ee soo gala dowladda hoose cashuur bixiyaasha inay yihiin waanu ognahay ma dafirsanin duruuf iyagoo wax ku qala waanu u nimi taangiga ay sheegaysaa wuu jiro taangi la-aan biyo la-aan iyagoo wax ku qalaan u nimi waxaanu ku dadaalay inay biyo helaan oo biyaha iskaga maydhaan nadaafadooda ku ilaaliyaan inay helo suuliyadii nadaafadii waanu ka qaadnay oo waanu alaab beeshii waanu u nadiifinay anigaa ku qoray hablo laba nadiifisa oo dowladda hoose shaqaalada ka mid ah ku qoray inay nadaafadooda kor u qaadaan sariibada waxaan u xidhxidhay dad baan u xidhxidhay shiidayay sariibada dusheeda dhagax ku tuuraya baan u xidhxidhay oo caruur lahaa ayaa ogeydeen oo muddaan waalidkii dhalay ku wada hadlaynay haddeer waxaan qabaa intii hore u saarnayd mooye wax dambe inaanay fuulin intaana waxaan ballan qaadayaa inaan inamoodo oo ka soo rogo oo ay dusheedu nadaafad ahaato waxaa ii qorshaysad inaan rijiyeeyo
oo aan istamar mariyo runtii sariibadu ay noqoto sariibad runtii hoosteeda iyo dusheeduba bad qabta oo ka bad qabta kulli muxadasaad kasta oo dusha kaga dhaca inay ka bad qabto taana qorshaha igu jirtay qodobka saddexaad qodobada ugu dambeeya waxaa runtii iyadana meesha ku jirtay in dood wadaag dowladda hoose iyo xildhibaanada golaha deegaanka oo isku duwan iyo shaqaalaheedu ay dood wadaag shacabka u qabtaan oo maysuduwe ilaa iyo shacabka qofka ugu hooseeya levelka isagoo xil ahayn inay wada doodaan oo si sariixa loo wada doodo ardayda jaamacadu ka soo qayb gasho oo kuwa ka baxay ka soo qayb galaan annagu mar walba diyaar baanu nahay ninkii hulaaban inuu wax qarsanayaa la moodaa annagu mar kasta waxaan diyaar u nahay inaanu shacabkayga qancino inaanu isbarbar taagno in wixii xagayo runtii annagoo mar walba aan ka tegayn tusaalahayaga iyo tudhaalahayaga iyo awooddeeda dowladda hoose aan ka tegay waxaanu diyaar u nahay inaanu qancino shacabkayaga diyaar baanu nahay oo wixii aanu qabanaynana aanu taabsiino wixii aanu qaban kari weynana aanu dhanaahno qarashka iyo hantida iyada noo saamaxayn qodobka isagana intaasaan kaga tegayaa waxaa qodobka isaguna aan ii qorin wuxuu ahaa in runtii isagana la sameeyo waxa loo yaqaano sayladaas iyaduna waxay idinku midaan oo runtii shacabku ay wada dareemayaan iyadana taana waynu u guntan doonaa haddii alla ka dhigo waxaan halkan idinkaga mahad celinayaa si mug iyo miisaan la idinkaga mahad celinayaa kasoo qaybgalkiina inaan wada hadalno oo wada doodno oo wada tashanno oo wax isu tusaaleyno oo isu tudhaala oo wada hadallaa dantayada weeye ma nihin qaar ay doodiinna iyo maagitaankiinu wax ka dhibayaan ma nihin waxaanu nahay dad u tababaran inaanu idiin shaqayno waxaanu nahay dad u tababaran in halkii hore wax joogeen aanu hore uga sii soconno waxaanu diyaar u nahay inaanaan dantiina ka tanaasulin haddaanu ku waayeyno mansabka aanu maanta joognay xildhibaan ama maayir ama maayir ku-xigeen aanu nahay ama xogaye haddaanu dantiina ku waayeyno xilkayaga waanu u dhigaynaa madaxa danta guud iyo danta caamkaaba waanu ka shaqayn doonaa intaana waxaanu wax ku noqonaynaa annagoo idinkeedii hela waxaan hadalkayga kaga baxayaa waan dheereeyey hay-adda sonsof aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa labada ruux ee maanta o dhan inoo samreeyey aniga lafteeda shaqooyin badan baa ii yaalay waa ogtiin maayir kuu maqan yahay aniga xogayaa howlo badan baa noo yaalay haddana waanu samiray waxaan hadalka kaga baxayaa bahda saxaafaddu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin runtii waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose oo xildhibaankii iyo agaasimi bay nagala joogaan iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xildhibaanada xagga dambe ka yimi mursal iyo maxamedna iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan dhammaanteen idin leeyahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu